maxamed sheekh isaaq safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya oo fadhin doona dalka Suudan ayaa munaasabad soo dhaweyn lagu sameeyay magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi Suudan waxaana munaasabada soo dhaweynta ka qayb galay qaybaha kala duwan ee jaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Khartoum ee dalkaasi Suudan safiir maxamed isaaq ayaa jaliyada Soomaaliyeed kaga mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen iyo isla markaasna bogaadinta shaqada cusub ee quruxda badan oo runtii aan maxaa lahay ka maqlay dhagahayga iyo qaar ka mid ah laftoodii maamulka jaliyada intaan la kulannay ayagana ugu wargelinayay marka in horta shaqadaasi quruxda badan iyo gurigan quruxda badan oo runtii aan arkayno in shaqo iyo juhdi badan la geliyay in sheego injaaz weyn waay runtii oo lagu faano gaar ahaan Soomaalida aan haddaan nahay oo Suudan joogto aan ku faano gaar ahaan safaaradda ay ku faano xaqiiqdii Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadani Hirshabelle TV Jowhar.